muuqaalan maalin dhaweed soo geliyoon ku sheegayo nimanka shayaadiinta haddii laga adkaa waayey in wada hadal lala furo reeshiya maxaa diidaya ayaa falcelin aad u tiro badan iga soo laabatay dad aad u tiro badan oo reer Soomaali weyn TV ayaa qaybta luuqa waxay ugu soo dirayaan warkaba yar oo nimanka shayaadiinta ayaad ku beertay anigoo ka afeefanaya nimanka jiritaanka Soomaaliya iyo dawladnimada iyo dadka Soomaaliyeed badiidan anigoon caqiid ahaan iyo caqli ahaan midna aanan ku taageersanayn oo il iyo dhag aan kala nahay ayaa haddana markaan rogrogay oo dhan walba aan fiiriyey inta sano oo dagaalka nimankaa socdo iyo dagaalkaanu markii uu bilaabanayay qaabka fudud uu ku bilowday ayaa aqliga wuxuu tusay nimankaa in wada hadal uun lagu dayo intii joogtay 2007 iyo 8 iyo 9 xilliyadii Khartoum shirarka lagu wada gelayay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo dawladdii Sheekh Shariif intii joogtay ayaa horta sheekadan fahmi karta nimankan intaan dagaalkoodu bilaaban waxaa la isku dayay wada hadal in la furo shuruudaha nimankaanu ay wateen shuruudo aad u yar bay ahaayeen shuruudaha nimanka xilligaa wateen shuruudo aad u yar bay ahaayeen oo dawladdii xilligaa jirtay ay awooday inay ka tanaasusho haddii si Ilaahay ku aadinayo xilligaa ka tanaasuli lahaayeen dad aad u tiro badan qaar ay qarax ku dileen iyo qaar ay weerar ku dileenba maanta waa noolaalahaayeen laakiin waxaan ku xaqiijinayaa xilligaa shirarkii ka dhacaya Khartoum dawladda federaalka oo maysan madax banaaneen daal waxa shirarka ka taagnay oo markay dhacayaan lagu dari jiray nin gabra la yiraahdo oo dawladdii maxaa Cabdullaahi Farmaajo markay timid wadanka ay ka saartay shir walba oo nimanka iyo dawladda federaalka ay iskugu soo dhawaadaan asaga diiday sababtoo ah ciidamadii Itoobiya ee xilligaa joogay Soomaaliya ayaa heshiiskaas ulid ku ahay shuruudda koobaad oo nimankan ay wateen waxay ahayd ciidamada Itoobiya horta bilaa shuruud wadanku waa inay ka baxaan waa shuruudda koobaad ay wateen dawladdii ku meel gaarkaadu xilligaa jirtana arrinkan way ka biyadiideysay sababtoo ah gabra gadaal ka taagan oo janan ciidamada watay mana yeelaynin arrinka xilligaa waxay doonayeen wasiirka diinta iyo cuqaafta iyo wasiir kale oo hadda aanan xasuusan iyo dhowr xildhibaan in dawladda federaalka loogu daro ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiyaanka oo markaa Soomaaliya joogana Soomaaliya laga saaro afarta shuruudood markaad fiirisid inta qof oo Soomaaliyeed nimanka ku maqan aad fiirisid wax la isbarbar dhigi kara maahan afar shuruudood oo aad u fudud oo dawladda xilligaa jirtay intay samayso xiitaa nimankan ku shurqoosho ay ku xiri kartay ayay ahaayeen maadaama dad shisheeyaa shirarka ay garwadeen ka ahaayeen waxaa la istusay nimankan inay yar yihiinba oo iyaga dhanba la soo qaban karo waa laga soo biidiiday shuruudihiina waxaa la yiri macquul maahan waa inay ka tanaasushaan ciidamadan jooga ee AMISOM inay Soomaaliya sii joogan wasiirkiina iyo wixiina waa la idin siinaya nimanka waa diideen 2017 sano laga jooga dadka Soomaaliyeed ee nimankaas sababsadana milyan iyo bar waa gaarayaan bal ilaahan kugu dhaariya adiga Soomaaliga ay daawanaya afarta shuruudood oo nimanka ay wateen iyo inta qof ee Soomaaliyeed ee naga baxday ma wax la isbarbar dhigaa anigoo marka taa ka duulaya xilligaa xogogaalkii noolaana kamid ah ayaa waxaan soo jeediyay war nimankan maadaama laga adkaa waayey oo intaasoo degmo oo laga qabsaday oo wiilal Soomaaliyeed ay ku dhinteen haddana ay maanta gadaal u qabsadeen markay qabsanayeen intii oo kale oo wiilal Soomaaliyeed ku dhinteen barrina dawladda federaalka ay doonaysaa haddana inay weerarto intii oo kale ku dhimato dhicina karta inay mar labaad ayagu sidii oo kale u qabsadaan oo intii oo kale ku dhimato intaan iska daawan lahayn dhalinyarada ayagu ay soo dagaal gelinayaan oo annagu aynu dagaal gelinayno oo hig ku dhamaanaya maxaa diidaya dad Soomaaliyeed aan nahay war walaal maxaa doonaysaa iyo maxaa doonayna isdhaxno kanu masaajidku galaya uu tukanayaa Allah iyo rasuulkiisana waa rumaysan yahay annagu masaajidkeenu ku jirnaa dad muslimiina oo Allah iyo rasuulkooda rumaysan baynu nahay inta salaadood baanu tukanaynaa xadkii baynu aadaynaa sakadii iyo soonkii baynu iska gudaynaa ayaguna sidaas leego kale dad muslimiin ah nahay ayaguna waa dad muslimiin ah aqeedadanadu ha kala duunaato ayagu aqeeda gooniyaha aaminsanaadaan annaguna mid gooniya aan aaminsanaano dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagu ay soo dagaal gelinayaan oo annagu aynu dagaal gelinayno hooyooyinka maalin kasta barakacaya kuwa gablamaya kuwa sayda saaranaya hadii dawladda federaalka ay nimanka soo fariistaan shisheeyaha inta ka tagaan boqolkiiba boqol waxaan hubaa ayaga iyo dawladda federaalka abu heshii karaan walaalkayga Soomaaliyeedu inta aadan xagjir noqon ama xagjir dawladda federaalka aadan noqon ama xagjir nimankan aadan noqon waxba been yaan la isku sheegin aqeedada ay iyagu aaminsan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud ka halka ka muuqda iyo Sheekh Shariif iyo mahad salaad kulligood aqeedada noocaas way aaminsan yihiin laakiin kuwaanu way ka adduun jecel yihiin waa isku aqeedo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo mahad salaad kulligood waa isku aqeedo Sheekh Shariifna waa ninkii aasaasay marka laba nin oo nina uu run ku sheegayo madax adag iyo mowqifkiisu ku taagan yahay nina uu ku reey magaaleynayo ha kala jecesha adigu
intii ugu dhalishay marka Soomaali inuu Soomaali kala la hadlo anigu wax dambi uma arko haddaad igu fikrad tahay qaybta soo commentigan kugu sugayaa muuqaalka laagta iyo sheerta ka iloobin